مناسبة عشر شرف يعويسين أو وزير كوزارة ورشدها سوماليلاند مدن شعيب محمد موسى وسميي وفتك وزير ده وهو قامين وزير كورشدها iyo gaadiidka dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo maalmihii u dambeeyay hawlo shaqo ku joogay caasimadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka qabsoontay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa munaasabada waxa kale oo ka soo qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland wasiirada cadaaladda kalluumaysiga wasiirka warshadaha oo isagu soo qaban qaabiyay munaasabada gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo waftiga wasiirada ah ee ka socda dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland mudane Axmed Faarax Cadare oo ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa hadallo soo dhaweeyay u jeediyay waftiga waxaana uu ka warramay xiriirka ay wadaagaan Soomaaliland iyo dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya oo uu ku tilmaamay mid si koraya maalinta ka dambaysa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliland oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay kor u qaadida xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada ammaanka ee wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo kor u qaadida xiriirka ganacsiga iyo isdhaafsiga wax soo saarka labada wadan oo ugu horeeyo kalluunka Soomaaliland oo la rabo in Itoobiya noqoto mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee la gaarsiin karo kheyraadka badda Soomaaliland runtii waxaan jecelahay inaynu iskaashiga hadda aynu bilownay iyo isdhexgalka inaynu intaa ka sii badino oo sidaas oo kale marar badan idinkuna soo booqataan annaguna tagno wada shaqaynta amniguna waa jirtay tii ganacsigu waa inoo socotay laakiin waa idinku sii baraarujinaynaa aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaanu jecelahay timekiina inaanu maaragtay hello si aanu maaragtay waxyaabaha casuumaadana aan u sii badino wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Shucayb Maxamed Muuse ayaa sheegay in Soomaaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yihiin ummad walaal ah isla markaana ay muhiim tahay kor u qaadida xiriirka labadaasi dhinac aad iyo aad baa la idin soo dhaweynayaa runtii waa wadankiina baad joogtaan dawladda aad ka mid ka tihiin waxaan u aragnaa dawladdeedii dadka dawladaha xuduudaha leh dadka xuduuda ma laha marka dadkii labada dhinac ba aad u joogaan waxaan doonayaa inaan xiriirka in adkayno dhinaca nabadgelyada iyo ganacsiga iyo isu socodka aad uga wada shaqeyno oo halka kalluunka milixdana la raaciyo insha Allah ta'ala wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka dawlad deegaanka Soomaalida Khadar Cabdi Ismaaciil oo si weyn ugu mahad celiyay dawladda Soomaaliland sida diiran ee isaga iyo waftigiisaba loogu soo dhaweeyay wadanka ayaa waxa uu sheegay in xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliland iyo dawlad deegaanka Soomaalida uu yahay mid soo jireen isla markaana sii jiri doona waxaana uu ballan qaaday in kor loo qaadi doono xiriirka dhinaca ganacsiga iyo isdhaafsiga wax soo saarka labada wadan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan iniga mahad celinaynaa sida quruxda badan shacabka haday noqoto iyo haday xukuumadda uu madaxweynaha hogaaminayo Axmed Maxamed Siiraanyo kaabineegiisa haday noqoto agaasinada haday noqoto dhammaan waxaan leenahay waxaan soo koobi karin oo marba mar ka sii dambaysa moraalkanaga iyo qalbiganaga aan ka baxayn sida quruxda badan in lagu soo dhaweeyay Soomaaliland ونوردين عبد الله علوشوق يا عول عبد كاهن تلفزيون قرنك جمهورية Soomaaliland Hargeysa